السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي أبون مرويني مدنيال ميل كستو aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni xog ogaal ee toddobaadlaha ahaa. Toddobaadkana haddii Ilaahay inoo ogolaado xagga fanka iyo dhaqanka ayaa aan isdul taagi doonaa oo aan ka hadli doonaa. Kulley waxayna ka mid yihiin barnaamijyadaasi kuwa ay bulshadu iska dhex aragto aadkana ay u xiiseyso. waxaad ii ogolaataan inaan magaciina kusoo dhaweeyo marti sharafka barnaamijka habeenkani caawa ka qayb qaadanaya oo haddii aan midigta ka bilaabo ah Mustafa Buux Cali. Mustafa Buux Cali waa abwaan Ilaahay hibo gaar ah u siiyey sugaan kala duwan in uu ka hadlo walibana qaafiyada aan idhaahdo labada qaafiyadood oo ilaa 3 noqon kara tidcanti lagu yaqaanay Cumar Kuul iyo Cumar Daahir Cabdi labadoodaba Allah u naxariisto. sidoo kale sugaantiisu waxa aan oran karnaa waa bad oo waxa ay taabanaysaa dhinacyaha badan oo in laga hadlo ay tahay haddii bulshada wax laga wacyigelinayo haddii ay tahay in wax lagu hogo tusaaleeyo iyo dhacdooyinka iyo waxyaabaha dhaca oo qisadaha laga soo minguriyo. dhinacayga bidixna waxa habeenkani caawa amartay sharafka barnaamijka kamid ah amartay culus waayo fanaanka marka la soo dhaweynayo iyo marka wax la weydiinayo su'aalihiisu way ka duwan yihiin su'aalaha dadka kale. Maxamed Xasan Cali waxa uu ka mid yahay fanaaniinta reer Djibouti waana gudoomiye ku-xigeenka fanaaniinta reer Djibouti waxa uu ka mid yahay kooxda 4 Maaris roog cadaaga ah. Maxamed waa nin bulshaawi ah oo dhaxgal leh dad la dhaqan leh sidoo kalena ay dad badan oo fanka xiiseeya jecel yihiin ama saaxiib dhow u ah. Maxamed waa dadka Ilaahay hibada gaarka ah u siiyey fanka iyo dhaqanka wuxuuna aad iskugu taxalujiyaa oo inta dambe loogu yeeraa macallin Maxamed oo xagga dhaqanka ayuu aad iskugu taxalujiyaa in uu baro dhalinyarta iyo da'yarta iyo cidii u igmataba in ay macallin u noqoto. habeenkana caawa barnaamijka ayaa marti u yahay soo dhow baan ku leeyahay Maxamed. marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan hadalka siiyo Mustafa ku soo dhow barnaamijkeena xog ogaal kulley barnaamijyo badan baad ka soo qayb qaadatay haddii golaha raadiyaha telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti noqoto suugaantaadana dacaawo ma oran karno waa soo wada qaadan karnaa laakiin wax ka badh ayaan soo qaadan doonaa. ama barnaamijka kugu soo dhaweynaya bal marka ugu horeysa waxa jirta maaso aad ku soo ururisay mahmaahihii oo dhan sida ay kuugu dhalatay marka hore iyo qiimeyn intee la eg baad u arkaysaa iyadoo wax ugu bana tahay ina mahmaahihii oo dhan maasa laga sameeyo. waa runta horta oo maasanta Faadumay de waxay ugu dhalatay ahayd aadan Faarax Samatar Allah u naxariistay abwaankii weynaa iyaan doonayay inaan xuso isagana ku xuso oo waayo hees buu ku waxeeyay Goobasanga wuxuu yiri oo 5 mahmaahood ay Soomaalidu ka wali yaqaaniin ay ku jirta heesta marka aan xusaya abwaanka weyn baan yiri bal haduu alla gaarsiiyo maaso ku soo ururi murtideeni maasada magaceega meel mar baa leedahay waa 40 aadan ku xusay Allah u naxariistay 40 mahmaahood iyo murti on leenahay oo maasa ah gudkuna waa geel fulay amba hooyadii baa sida ku yaqaaniin haysanayso waa shubaashi hadaan maasadii ku bilaabo murti dooraho rag maskaxsani meel mariyeen han mulaasho han maaseeye maqal waan bulshooy ruux maleeyi oo maroorsan haduu maadiyo waan malin yiri murug weeye mayla socota ruuxan maareyn oo midiidina haduu mitaamiyo kii mudnaaba meesha ka baxee mayla socota ruux malabsida oo mahaniya haduu maciiniyo waaye meel mar meehanawiye mayla socota marwa muran badan maqasha eegin oo meertiya waxa ka mudan ta ku maqashee marxaba ku taa gacmo midaho sidii mataanaha ismaciinsada ayaa murtidii martabadiyo meel fog gaadha sidii marxuunkii harigu makalay hay malaynina mitid baanahay midigtiisiyo huwa murjinkii amba muuqo macna yeelo mudano noqo ama maqnow oo madasha ha tagin murti baa tiri ruux maqnuudi haduu masaliyo sheegta milgeyn wuxuu maldihi waa meheradiisa murti baa tiri mara qurux badan muunad fiican
axad miigano matalo ummadda in lagu mulkin murti baa tidhi murti baa tidhi miigtaadu waxay maashaa macaluul iyo maydhagaajee yaan la moogaan nin ismoodow madaxa taaga ninaan maagin oo maqiiqan ayaa meeleeya murti baa tidhi arrin mugayo muran batayo meel dhig diiday mid baa ka maqan ama mid baa dheer murti baa tidhi walaal macaano midig furano maskax suuban lama muudsadee waa la mahadshaa murti baa tidhi amba malakeen maareeyo dadkoo muuqda noqo ama mala raac muxsino noqo murti baa tidhi majadu iskeed wax ma goysee bariga midoo malawara'aa muska fadhiya murti baa tidhi faraha midkood hadday murgacato ama marado mataanteedaa miidho bixisa murti baa tidhi ninkii mirtee mili dhexe habeen muday farta maalintiiba mudeeye la yidhi murti baa tidhi dunida muggeed maalmahan tirsan milibawaasi manfac iyo dhibku way isdaba maraan murti baa tidhi ninba malayntii iyo moodkii haddii lala masay waa meelka dhac aan muran lahayn murti baa tidhi marnaba inuu dhabarku mufluhu waayin malihii hurdo maxaba leh ku mudan lahaa murti baa tidhi ruux masuug badan oon mahadin maandhow ummadda mawlana dhabtii inuu mahadin murti baa tidhi nin wax ku moodo maalin dharagiyo rabag midig fiiq maya waa male hameermeerin maskax baa tidhi mushaawiri iyo ismaqal runaa mashaakilka iyo reeba maandhaaf oo lagu muraa murti baa tidhi maaxow geesigu mar walba runtii iskama diriree miligeegiiyo markeyguu sugaa murti baa tidhi qofba macallinkii marinkuu maray kama baydhoo waa matalaa murti baa tidhee mayga haysaa maax guraysa weyan moodkuya ha ka maanicin mahuraanta iyo masaakiinta murti baa tidhi hadal macaanoo madaxa dejiyaa ka martabad roon gacan macaanoo miliqsi bartee mayga haysaa nin miskiinahoo maro duugiyo sita marqoof iyo kamacee muuqaalka qorxoon alla waa u mid dhagaxba meeshuu macbuudku dhiguu mirow yaallaa ee hamilicsan mitraan lahayn murti baa tidhi ninka minankiis mudaan siiyee maamuusaha runtii ayaa muusow maariyata kale murti baa tidhi nimay midigtaa iyo muruqaa meel kaa saarin sharcina muggaa kaama meeleeyo murti baa tidhi ruux horow markii ninka masayroo marakudadiyo la doono moosid ma aflaxa abid murti baa tidhi marnaba seegi daad ma jiidhoo meelahaasay macno oloshaa murti baa tidhee mayga haysaa miidha ku nool mala beeshoo mooral jabtay sodoon meheris baa uga micno roon marwadu martidhi murti baa tidhi daadkaad madaxii mawgu arkaysid mijihiisana maxaad ka dhowri murweeya darane miliga kuu kordhaa gabu mooyee hadduu maskaxiyo kuu kordhin manfac waxba dhaantilax murti baa tidhi marba salaadii markaa joogtaa murad la tukadaa ee hamili weri'in murti baa tidhee mayga haysaa nin micii siray sababli imaagay kama sadbatee saxariir muday mawdka hortii murti baa tidhi ruux muumina meel mida uun dhabtii lama marar mici kama mudo waa ma dhacdo musalkaa yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh mawla weynow dunidana murugtee mashaqadii iyo maasheeyey dhibku maradaadii iyo ku dayd maciinka waxaan kusoo koobayaa waa xabadii koowaad fartaanada duco ilaahay baan deeyey nacam xabad